عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع عبد الرحمن عدولة كسو دو راديو بكاعة. ودوها ولا وارن السلام يا ومد ريت بوتنا والسلام يا وحلي سند ولا سلميلا شوكتام. waad mahadsan tahay sida aad waqtigaaga noo siisay ee nooga ogolaatay inaad ku soo dhawaato khadka telefoonka ee radio Bukaaco aad baan kaaga mahadnaqaynaa mar koobaad iyo mar labaad waad ku soo dhawaani su'aalaheeni baan u galaynaa annagoo jecel maanta inaan si gaar ah ku wareysano bacdama aad tahay hogaamiye xisbi waan kuma waad mahadsan tahay waanad mahadsantiin inaad waqtiina ku dhiinaysiiseen waan ku dhageysanaya walaal aada mudan Jaamac Cabdiraxmaan Cadoole waxaan doonayaa inaan ka wareysto waadiga og in mandaagii sanaad uu soo dhiganayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti sidee taa u aragtaa maxaan u arkaa nasiib darro ku dhacday ummadda reer Djibouti ayuu maan u arkaa waa nasiib darro mar walba inagu habsatay loona baahan yahay ilaahay inuu naga dulqaado ummaduna ay gacmaha isqabsato inagu waxaynu rabnaa inuu kursi mar rabne inay ummadeena hagaagto oo wax wanaagsan loo qabto oo xilku meerta noqdo waayo qofka haduu meesha ku raago wuxuu qaadanaya xaafada isagu leeyahay marka waa nasiib darro waa maalin mugdi oo shalay toole maalin mugdi ee Djibouti wahay sideedu malaynaysaa in looga bixi karo amba loo waajihi karo arrinka uu ka dhawaajiyay isaga oo maanta aan arkayno inuu awoodeedii aanu haysan oo xitaa hantaaq ay ku tahay inuu isa soo sharaxo mar shanaad waayo waxa weeyaan ilaahay baa wuxuu yiri la takalifu nafsan illa wus'aha illa ilaahu Djibouti isaga mooyaane cid kale ma talin karto miyayna taas nuqsaan ku ahayn umada reer Djibouti isaga laftiisa nuqsaan ku tahay hadda tirada aniga mooye cid kale ma jirto nacam soo mushkilada dawladda ilaahay baa kaliya ilaahay baa walba ka sareeya qofka bil aadmigi waxa wala loo baahan yahay horta qofka siyaasiga haduu yahay nin wanaagsan ku dhac iyo waxa loo baahan yahay wadaninimo nacam una wuxuu ka imanaya marka aad aragto inaad mataana meesha joogtay inaad xilka wareejiso sharaf bay ku tahay taariikhdana waad ku galaysaa laakiin hadii adigoo xilka haya lagu dul yimaado afrikaanka waa taqaana fadhiyay ilaa qoorta midida laga qabto cirka ma arkaan nacam markaana waxay ku dambeeyaan uska gataadun bay galaan waxa weeyaan qofka bil aadmiga inuu ka fakiro wax ka tag wanaag ka tag wax lagu xasuusto ka tag taasina kama dhigana meesha ku waar ilaahay baa waaraya cid kale waaraysa ma jirto nacam sida weeyaan nasiib darro siyaasiguna waxa loo baahan inuu la yimaado yani sharaf iyo mataqaana geesinimo uu bareero uu yiraahdo war intii waan soo waday bal maanta cid kale aan ugu tayo sidaasana anigu leeyahay taana ilaahay maanta waxaan leenahay ummadda reer Djibouti bariya ilaahay ducaysta ilaahay inuu isbedel khayr qaba idin keeno oo caafimaad qaba nabadda idinku aad gacanta ku haysaan ayagu ku faaneen idinka gacanta ku hayana inaan ilaahay wadankeena naga nacam su'aashayda labaad Jaamac Cabdiraxmaan Cadoole xisbiyada mucaaradka ah ee dalka ka jira ee kamid tahay wada shaqayn intee leeg baa idinka dhaxaysa ma isku dhuundaloontaan ma isku dhowdihiin mise waxa uu isagu mar walba ka dhawaajiyo yiraaho mucaarad dhabi dalka kama jiro taa maxaad ka oranaysaa horta waxa weeyaan fadhiyaay waxa aynu xukunka ka diidanahay haddaynu inagu iska ogolaano waa wax jira ma lihin waxa weeyaan qofku haddaanu khaladkiisa garan khaladka qofka kalena waxba kama sheegi waxa weeyaan walaal macaaridka wax dhibaata haysata waxa lagu kari lahayo waa isu kaalaya nin walba qoorta loo suray oo la yiraahdo aniga waxa ummadana taasi ma khaarijinayso isaguna uu ku caanamaalaya isaga waxa uu dana in sida loo kala fadhiyo waxa bad moodaa fadhiyay anigu runta kama gabro waa run qaarkood inta u shaqeynaya anu waxaan leeyahay war halayso yimaado hala wada hadlo meel wanaagsan hal istaago qofkii wanaagsan hala daba galo laakiin hadduu qofku yiraahdo aniga ma hadii aniga la daba gali waayo wax kale ma jiraan meel la gaari maayo ummadda reer Djibouti eeriyadii guumaysiga waxa iskaga qaaday midnimo haddii kursigana fadhiyay laba qof ku fariisanayso waa ku fariisanaya marka waa in la isu hal walaal la ixtiraamo oo mataqaana ummadda maxaa u dana la yiraahdo ma ahayno qofku yiraahdo maxaa aniga ii dal waxa weeyaan macaaridka maanta dhibaatada haysta waxa weeyaan iyagii baad moodaa inay kala fadhiyaan
marka waa inaynu runta isu sheegno aynu isu nimaadno la wada hadlo oo la iscalool xaadho oo ummadda aan rajada laga dilin ayaan leeyahay waa xaq waayo waxaad adigu aaminsan tahay danta gaar ah laga yimaado danta guud ha la iskugu yimaado si dalkan iyo dadkan loo badbaadiyo waa rasmi waa sheekadan aanu aaminsanahay weeyaan waxa weeyaan haddaanad rabitaankaaga halkaa dhigin fadhiyahay ood rabitaankaaga ka sarraysiiso meel la gaari maayo wataa maanta ay ku jirto dawladdu ay mar walba danteeda aanay dadka ummadda ka fikirayn ee sideen meesha u haystaa una ka fikirayso waan gartay ummadda reer Jabuuti bulshada reer Jabuuti iyadoo u bisil oo jecel oo doonaysa inay rayigooga cabirto qori caaradii baa lagu hayaa taa maxaad ka leedahay oo loo diidan yahay inay soo baxaan xitaa waxa loo diidan yahay maaragtay mudaharaad nabadaysan waa rasmi waxbaa ka jira laakiin fadxiya waxa weeyaan siyaabo badan oo loo mudaharaadaa jira nacam waxa weeyaan walaal haddaad wax necab tahay siyaabo badan oo loo cabiraa jira anigu dhalinyarada mar waxaan ku yidhi war maraya halkaa ku xidha cid waxba ha burburinina waddankaas waxaad tirahdaan waanu shaqadaanay waanu gaajoonay ummadda reer Jabuuti hadday wax diidan yihiin waxa weeyaan inay bal maalin uun inta albaabada xidhaan ay dabadda u soo bixo idhahdaan war waa naloo diiday mudaharaadkii xaafadaha iyagaanu fadhiyayna layr kaa baktistaan waxa weeyaan siyaabo badan oo loo tusi karo dawladda in la diidan yahay way jirtaa laakiin nasiib darradu waxa weeyaan ummaddii reer Jabuuti hoggaan wanaagsan bay lahayd hoggaankii wanaagsanaydna waxay ahayd inuu dadka mucaaridka isku sheegaya inay ka yimaadaan bay ahayd waxa weeyaan mucaaridka mid kalea kuu sheegay fadxiya waxaa nasiib darro ah ninkii shalay la shaqaynaya dawladda inuu maalinta mutura cawafka ugu jira marka laga qaado inuu intuu dhinka mucaaridka u socdo idhaa mucaarid baan ahay mucaaridka dayaan laga dhigin meel gudaafado damiirka lagu maydho waxa weeyaan anshax buu leeyahay ay leedahay mucaaridnimadu qofka bil'aadmigu waa inuu ka tago danayste waa inuu damiirka ilaashado waa inuu xaqa ku dadaalo laakiin hadduu markuu kursiga ku fadhiyana uu mushaaradiisa u ilaashado maalinta uu ka tagana idhaa mucaarid baan ahay anu kaa mucaarid uma haysto walaal waa runtaan kuu sheegay waana sidaan aaminsanahay waa fikirkaaga saliimka ah waayo qof walbiba fikirkiisa anagu waan ku ayidaynaa annagoo jecel oo doonayna isku duubni iyo midnimo in lagu waajaho si heeryada la iskaga qaado taana ilaahay waxaan ka baryaynaa in dadkeena bogooga burcad Allah isku mariyo xaqa ha wada tuso waxa kaloo jirta ku soco jaamac ku soco kuma qleen waxa fadhiyayaan kaa dhexgalay ilaahay baa sidaa iga sarreeya habeen walba waxaan ugu duceeyaa ummadda reer Jabuuti inuu ilaahay xaqa daransiiyo inuu ilaahay qabyaalada ka dulqaado ilaahay inuu wadanimadooda uu taam ka dhigo oo ay ducaystaan inta aanaynu ducaysana heeryadaas ay haysanayso walaal taasi waa run waayo dhalinyaradii 95% waa shaqo la'aan waxaanan arkaynaa in dibadda dad laga keenayo la leeyahay fikradooda iyo maaragtay ay aqoontooda iyo aanatole waaye aragnimadooda iyo khibradda ay leeyihiin bay Jabuuti ugu wax qabanayaan dadka reer Jabuuti miyayna khibrad iyo aqoon iyo waaye arag ahayn fadhiyay ka hadlaysa aqoone walaal waxa Jabuuti la keenaa dad ciida iyo sibirka isku laaqaya si waxaanay reer Jabuuti ciida iyo sibirka isku laaqi kareen kuuli baa la keenaa si waxay ku weyn marka kuuligeenu aanu tayo lahayn oo kala laga dhigaya direewal baa la keenaa mid reer Jabuuti wallahi waxaan u soo taagnaa nin Shiina oo meel ka saari waaye gaari waa direewaladii reer Jabuutina way buuxaan dhalinyaradiina way buuxaan marka ummadii reer Jabuuti sidaas loo bahdilaya waxa la leeyahay xitaa ciid iyo sibirka iskuma laaqi karaan halkaas la maraya fadhiyay taasi waxay ku tusaysaa inuu naga maarmay Caaq Ismaaciil oo inaan indhihiisaba buuxinayn dadka reer Jabuuti anu fikirka aan qabo taasay waayo weeyaan hadduu dalkan iyo dadkan u naxayo waxaasiba dalka kama dhaceen de wax ka daran baa ka dhacay waxa weeyaan dadkuna waxa weeyaan fadhiyay hadday wadanimo jirto dadka reer Jabuuti waxay ku dhicilaayiin meesha kuuli la keenay inay yiraahdaan war anaga kuuli anaga xaq u leh oo ay tagaan way xaq bay u leeyihiin iyagu shaqada qabtaan kuuliga laga keenay dabadda iyaga xaq u leh inay ku dagaalamaan weeyaan
hadday damiir leeyihiin laakiin inay daawadaan maaha waxaan se kuu sheegaya dhalinyaradan bilaa shaqada yaa u sababa waxa u sababa aabbahan 6 carruur ay xaafadda u jiifto ee maalinta loogu yeero bijin qaada intuu koofiyad qada RBPda u tagaya oon oranayo war 6 baa ii jiifta halkan carruurta la ii shaqo geeyo marka waxa weeyaan nin carruurtiisii ka naxay waaye ummad buu ka naxay waa maya inka way hadda dhibaatadaas ay haysata marka waxa weeyaan inagu waa inaynu horta isfaxno intaanaynu dadka kale af ku taagin waddaninimadeena iyo damiirkeena inaynu saxnaa fadhiya loo baahan yahay nacam waxa anu de waa sidana aaminsanay walaal waa fikirkaaga badan bay ka xanaajinaysaa laakiin waxa la leeyahay maxaa qul xaq law kaana murq maya fikirkaaga laga gabadan maaha maya runtu ragga way dishaay kama ragga ma dishay way ka nixisaadi mahmahadii Soomaaliyeed laakiin waxa weeyaan hadaan runta la isku sheegin oo xaqiiqda la waajihin laga bixi maayo caburidan iyo gumaysigan cusub ee dadka reer Jabuuti la doonayo in lagu maartay curyaamiyo amba lagu hagardaamiyo waxaan ku sheegayaa kale walaal dhalinyaradii wax soo baratay wadnaha lagala baxay ninna kuma dhaca inuu fikirkiisa cabiro waana xitaa waxaan ku yiri kuwa dawladda waxaan ku yiri war dhalinyaro badan oo maskax leh oo aqli leh ayaa idinla joogta war siiya fursad ay idinku sheegaan wasiirkii wuxuu moodaa marka la yiraahdo war waxana wanaagsan in balaaskiisa la doonayo waa in mataqaana dhalinyarada inaan wadnaha laga bixin loo soo celiyo kalsooni oo la yiraahdo wadankiina maxaa loo qabtaa maxay naga siyaa xitaa kuwii la joogay baanay ogolayn inay xog sheegaan marka dhibaatadaas haysata waad maadsanta ereygaaga u dambeeya ummadda reer Jabuuti ee ku dhageysanaysa dal iyo dibad maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baqaanay isku duubni dad shicib iyo macaarid ba isku duubni baan leeyahay isku duubni haddii la waayo waxba dhici maayaan sidaasu maynu maxay gaalada oran jireen ayguna halkan mu kacaya safarkuna uu soconaya halkaasu maynu daawan maanta sanaad iyo mid lixaad iyo mid toddobaadna uu inoo iman doonaa waad mahadsan tahay sida aad waqtigaaga noo siisay jaamac cabdiraxmaan cadhoole aad baan kaaga mahad celinaynaa ku soo dhawaatay caawa radio bukaaco mikrofoonkiisa waad mahadsan tahay mar walbina waan kuu furanahay waxaan leenahay aad baad u mahadsan tahay sida aad waqtigaaga noo siisay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waad mahadsantahay walaal salaamaya